dumarka laga maqan yahay gogoshooda ninka ku fariista mathalu alladhi tanhashuhu al-asaawidu wuxuu la mid yahay nin abeesa cunaysa oo kale qabriga abeesa ku cuni doontaa fiiri qof dumara nin miskiin ah oo shaqo aaday oo risq ciyaalkiisa u raadsaday oo meelahaas wareegaya ayaad gurigiisa u dabamartay faaxishaad samaysay waxaad la mid tahay nin abeesa googoosanaysaa tahay abeesa unbaa ku cunaysa oo sugaysaa waxay arrinkaasu caddaynaysaa ikhwaanii zinadu inay darajaad tahay iyadoo wada xaaraan ah inay wada darajaad tahay haddana marka zinada qofka deriska oo dumarka ah zinada qofka dumarka oo la qabo zinada qofka laga maqan yahay zinada gabadha dhalinyarada ah intaas oo dhan waa zino xad baa ka wada waajibaysa waxaa zinada ka mid ah saan aragnay hadalka iyo taabashada iyo dhegaysiga iyo fiirada ayaa ka mid ah wuxuu nin ka hadlaayay arrimahaas ayaa wuxuu yidhi carabaha wuxuu dumarku sifaynayay markaasuu wuxuu yidhi wadidtu lama kaana wudduki khaalisan وأعرضت لما كان نهبا مقسما ولن يلبث الحوض الجديد بناؤه على كثرة الوراد أن يتهدما وحيري قبري مركا دور صونيد oo cirdigaagu uu dhowrsoonaa oo jacaylkaagu hal qof uu ku koobnaa waan ku jeclaa markaadan qof aan ninkaaga ahayn dumarku ayna fiirinayn nin aan qabin ayna fiirinayn waan ku jeclaa markii wuxuu yidhi aad qaybsantay oo niman badan ku yeesheen waan ku nacay fiiri waan ku nacay xawdka ama darka la dhisana ama guriga la dhisana wuxuu ku dumaa ama ceelku dadka ku soo arooraya badnaantooda macnaheedu waxa weeye xataa jaahiliga carabta ahaa dumarku inay ragga kala galgalaan way nabcan jireen iska daa islaamka xataa hadalka xiriirka dadka kala dhaxeeya way nabcan jireen waa jaahiligii weeye islaamka iska daa